tiktoker iyo qaaqle iyo wax waalan baa qaadanaya taladii haddii dadkii lahaa ay ka tagaan maanta Soomaali miis xilay fadhidaa qaa'imada meel kasta oo wanaag la sheego daylkay kaga jirtaa waa u hooseysa salaan kadib munaasabada abaarteedii wixii ku aadanaa guurtidii baa tiri ismadii iga horeeyana waa yiraahdeen aad baan ugu faraxsanahay imaatinka suldaanka beesha gogasha dhigtay oo guurtida iyo ugaasku ay horkacayaan mahad gaar bay leeyihiin ceergaabo iyo wixii ka dhacay ka hadli maayo hadda anigu suldaanka iyo waftiga uu watana waxay noola yimaadeen wax wanaagsan waxay noo keeneen nabad waxay noo soo jeediyeen inaanu la qabanno oo garab galno sida ugu wanaagsan ee arintaas lagu dhameyn karo oo loo xalin karo anigu raas casayr baan ka imi ceergaabana sibay ii taabanaysaa ficlan waxaan markaa maantay Soomaali dhibaato ka jirta meel walba waxa la yiri Soomaalidu idinka qoslaya nafluhu way idin qoorsaday nin baa yiri gabiyay adduunka maanta Soomaali meesha ay ka joogto man lam yaarif qadra nafsi halak bali ninka naftiisa qiimeyn karin ama qolada nafteeda qiimeyn karin way halaagsami tira ahaan intaynu nahay iyo tay ahaan waa garanayna guud ahaan Soomaali baan la hadlayaa dadka qaarkood 2 milyan ummad ah baa jira 1 milyan iyo bar baa jira ummad tira badan oo badan baa jirta intaynu nahay waa garanaysaa dhulkaynu joognana waad garanaysaan muhiimadda uu leeyahay iyo maantay sida indhaha loogu hayo البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترسى أوتاد قولي لما دسو إلا إنه ليه تير كنا دكوياه هي تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا أرنت وحكوها جاكتا مركي دتك الرأي أصاحبك وإنت نهدى وأنه مذيهي سلطانكو mudan keeni kala dhamina waa fadhiyaan maanta Axmed Harti oo gogasha dhigay iyo Maxamuud Harti iyo Maxamed Harti waa joogan ahlu ra'yiga dadka Soomaali oo dhan bay inta matali karta ummadaha adduunka hal qof baa badbaadiyay wax qof baa wax qabtay intaanu waxay qaban weyday cid qabanaysa ma jirto maanta Soomaali miis xilay fadhidaa qaa'imada meel kasta oo wanaag la sheego daylkay kaga jirtaa waa u hooseysa xumaantii la sheegana koobay ka tahay suuqmaasuq bay koob ka tahay khashin buubnin baa waa madaxweynaha Mareykanka wuxuu Afrikaanka khashin ku sheegay ficlan anigu Soomaalidu dad muslima way khashin way oran mayo laakiin inta hogaamiso maanta wuxuu ahay waa ka agdhowi dadka in la badbaadiyo intiinaan iyo in la midaba geeyda mudankina waa noo jooga oo waa inta meesha fadhida iyo in la mida cid inooma maqna maanta Soomaaliya meeshay ku taaliyo ahmiyadda ay leedahana waa garanayna wiilka oran mayna idinka hodmaya oo dhargayo liibaanaya nimanka maanta siyaasiyiinta dalka lagu ma aamini karo waxa ay meeshay gaarsiiyeen waxa dhacay iyaga ka masuula iyadoo maanta Soomaaliya ay say tahay aad garanaysaan ceergaabo waxaan rabnaa nabad baan ka rabnaa nabadaasuuna noo sheegay inuu nagu hogaaminayo suldaanku meeshuu galo iyo gogashuu dhigo iyo cidduu meeshay la gashaba waxaanu ku nahay raalli waxaan rabnaa inaan nabadda isku wada qaadanno oo aad nagu hogaamiso suldaan maadaama hadda meesha qadiyadaasi ka jirto aad maaragtay budhigaheedii tahay annagoo dhanna mudankayagii tahay inaad nabadda nagu hogaamisid meeshay jirtaba laga doono ciday ku jirto dhanna lala maaragtay la tixgeliyo sidii dadkaas ku nabdi lahaa oo ummadda Soomaaliyeed maanta waa handada yani
tahdiid baa haysta aan la dhayalsan karin waxaan ka baqayaa horta waa ka xumahay hadda waqti anigu hadalka waa badiyahay raalli iyo ahaada waa wax yar baan waa talax tagayaa wax ceeb lana oran meeyeen nabad baynu haysanay aynu ku yani khubz maca alkaraama khubz maca alkaraama waxaan cunana waa haysanay aqoon iyo dhaqaale ma lahayn waa isdhex maraynay waa kala ganacsanaynay intii maaragtay Soomaalida koonfureed waliba gaar ahaan waqooyi gobolada waqooyi bari iyo waqooyi galbeed waa la isdhex maray waxa la isku hayaa hadda been la isu sheegay iyo asraar iyo kibir dadka ma dhaqaan waxa la rabaa nin walba waxa ku jira ha dhigto yaa gar daranayay inaan oran laakiin horta bal xaaladda sidii loogu soo celin lahaa inaan u weel qaadna la rabaa suldaan aan ugu hogaamisin dagaal diyaar uma nihin cid naga dhimatana ma rabno hal qof nagama baxo maxaa yeelay qof kasta oo Soomaali ah maalin baad u baahan tahay qof kasta oo Soomaali ah maalin waa la inoo soo socdaa 70 milyan baa xaggeena ka joogta annaguna waxaanu nahay waa garanaysaa waxay yiraahdeen waxaan rabnaa xoog iyo xeelad midaan ku tagnaba waa inaanu gaarnaa badda marka walaalayaal mudanka iyagii iyo khiyaartii iyo guurtidayadii iyo sharaftii inta la hor meesha fadhida iyo Soomaalida kale maqlaysaba waxaan leeyahay xaalka aynu ku jirnaa waa kii lagu tirmi lahaa tafarraqu ayaadi saba ilaahay sabu inoo ka sheekeeyay quraanka waa taqaanaan markii uu ka sheekeeyo yiri waxay ahaayeen beeray haysteen biyay haysteen jannay haysteen ka bacdina de way qooqeen oo way kibreen oo waa la baabiyay markuu ilaahay ka sheekeynayay wuxuu yiri waja'alna baynahum wa bayna alqura allati barakna fiha quran zaahira reer yaman iyo shaam kuwii ilaahay barakeeyay waxaanu dhex dhignay magaalooyin isku xiran baanu dhex dhignay markaasaa la yiri siiru fiha layaaliya wa ayaaman aaminiin habeen iyo maalin wadada mara idinkoo aamina markaasay waxay yiraahdeen doorteen marka waxay sameeyeen wixii way qooqeen way isdulmiyeen way isbarakay way islaayeen kadibna maxaa laga dhigay fajacalnaahum ahadiis waxa laga dhigay sheeko waxaan jirin bay noqdeen marka ilaahay waxaan ka baryayaa inaanay Soomaali noqon kuwa lagu sheekaysto ee aynu noqono hadda maantay ma daahsanine horgal u noqono nabadda meel kasto Soomaaliya joogtana wixii wax gala iyo wixii wax garanaya hatta kuwa jooga Soomaali halka Hargeysa jooga dhaqankooda culimadooda iyo kuweenuba in loo kaco oo la iska qabto waxa maxaa yeelay tuhda al-umuru bi ahli ra'yi ma saluhat fa inta wallow fa bil ashrar tanqadu tiktoker iyo qaaqle iyo wax waalan ba qaadanaya taladii haddii dadkii lahaa ay ka tagaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh